loogu gurmaday maalinta dhaweed oo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ay ku tageen diyaarad haddii gobolkeenni diyaarad lagu tegay oo dadkii diyaarad loogu gurmaday oo wixii halkaa layna ka tuseen arkayni dadka halkaa jooga sidoo aqroonku waxa la yidhi waa badan yihiin ismaaciil salamaan oo badanna waa la jiraan dadka halkaa ka shaqaynaya waryaaye iyo waxa inagu aynu haysanno gaariga halkan aan ka baxay anigu waxaan tegay 200 kilomitir oo iyax markiiba waa soo laabtay dadka ay inagu meena dowladnimada u sameeyay meena wadanka u sameeyay shaqaaleena ka rabaa waxaan u soo noqonayaa reer Garowe Puntland waa dhinaca ma ka istaay reer Garowe u soo noqonaya reer Garowe waa wada qurux badannahay anigana way jeedaan miisaankaygu intuu leeyahay waa 100 iyo xoogaa taygaan xirana way u jeedaan 98 anigu taygaa ma haysan sidaana uma buureen gabdhaha quruxda badan ma joogin Garowe hoolkan ma lahayn Garowe caasimad ma ahayn hoolka lagu shirayna wuxuu ahaa 54 ninka halka hadda ka degay oo ciilka qaba dhalinyarada beeldaajaha oo dalkiisa godoonka yahay aabihiisa Garowe u hiiliyay oo caasimadda ugu hiiliyay oo yiri waa caasimad gabadhii reer Garowe ugu dambeysay habeenka dhawaad maanta dhawaad rees lagu meheranayay $10,000 buu meherkeedu ahaa $10,000 ninka saa'il oo ku hiiliyay wiilkiisii caawa halkaas taagan yahay gabadha ugu horeyso dahabka halka la soo istaagi doonto aabihii shalay inoo hiiliyay isaguna caawa martii inoo yahay inta reer Garowe waa ganacsada maqan caawa animaan bakhaarada iyo farmasiyada iyo hoteelada loogu tagaya intaasna reer Garowe hiilkii shalay maanta la idin ka rabaa